Assalaamu calaykum. Casrigan la joogo inaad haysato bachelor, master degree iyo PhD waxa ka muhiimsan inaad leedahay xirfad aad ku maareyso noloshaada, bulshadana aad uga faa'iideyso. Haddaba haddii aadan lahayn wax xirfad ah, waa qasab inaad qorshaha ku darto sidii aad sanadkan cusub aad u baran lahayd xirfad. Sidaas darteed waxaan halkan kugu wadaagayaa 6 xirfad oo ay muhiim tahay inaad barato sanadkan cusub ee 2022. haddii aan ku bilaabno xirfadda koowaad waa digital marketing. dunidu waxa ay u guurtay xagga tiknoolajiyadda oo adeeg waliba oo la qabanayo kama maarmo xayeysiin iyo suuqgeyn, ha ahaado mid ganacsi ama adeegyada kale. xirfaddan digital marketing waa qayb ka mid ah suuqgeynta, taas oo ku saleysan adeegsiga internetka ama online-ka ah si loo gaarsiiyo badeecooyinka ama adeegyada bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoo loo sii marinayo baraha kala duwan ee bulshada ku kulanto. waxyaabaha lagaga baahan yahay si aad u noqoto digital marketing expert ama aad u barato xirfaddan digital marketing waxaa ka mid ah inaad wax badan ka taqaano social media, basic design-ka, data analysis-ka, content creation iyo communication skills-ka. xirfadda labaad ee loo baahan yahay inaad barato waa graphic design iyo video editing. waa laba xirfad oo isbarkan laakiin aan kala maarmin. graphic design waa xirfad la xiriirta naqshadeynta brandiska kala duwan ay leeyihiin shirkadaha ama institutionka kala duwan, sida sameynta logooyinka, ID kaarada, boorarka, roll-up-yada, bannerska, flyerska iyo qaar kale oo fara badan. si aad u barato xirfaddan waxaad u baahan tahay inaad wax ka barato software-yada kala ah Photoshop, Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign iyo qaar kale oo fara badan. video editing waa xirfad la xiriirta isugeynta, jarjarista, qurxinta muuqaalada si loo helo muuqaal qurux badan oo loo soo bandhigo bulshada. software-ska loo isticmaalo waxaa ugu caansan Adobe Premiere Pro iyo Final Cut Pro. xirfadda saddexaad aan doonayo inaan kula wadaago waa xirfadda public speaking ama fagaara ka hadalka. xirfaddan waa mid aad u muhiim ah, dad badan aysan ku baraarugsaneen. xirfaddan waxay kaa saacidaysaa inaad afkaartaada ama doonistaada aad bulshada ula wadaagto si qurux badan, kalsoonina ku dheehan tahay. haddii aad barato xirfaddan, waxaad noqon doontaa mid loo dhig raariciyo hadalladiisa marka uu ka hor hadlayo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxay kaa saacidaysaa inaad u muuqato qof aftahana oo si fudud u soo jiita indhaha iyo dhegaha jamaahiirta. tusaale ahaan, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama wuxuu ahaa nin aad u yaqaan public speaking, waana tan ka saaciday inuu madaxweyne noqdo xilligii uu tartamayay kana soo dhex baxo musharaxiin badan iyadoo la maleysanaynin. xirfadda afraad ee aan doonayo inaan kula wadaago waxaa loo yaqaanaa forex trading ama sarifka lacagaha qalaad. forex waa xirfad la xiriirta isu beddelka sarifka lacagaha cryptocurrency-ga. xirfaddan waxaa laga yaabaa in Soomaalida inteeda badan ay qawaaf ka qabaan, waxaana sababay in sanadihii lasoo dhaafay ganacsato badan ee Soomaaliyeed inay lacag ka dhaceen qolyo scammers tuugo ah oo sheeganaya inay yihiin shirkado ka shaqeeya suuqa forex. laakiin qofkii si dhab ah u barta waxay ka mid tahay xirfadaha sida fudud looga sameyn karo lacag aad u fara badan, kuna sahlaysa inaad si fudud ku noqoto 30 milyan haysta. waxaa jira dhalinyaro badan ee Soomaaliyeed oo yaqaan xirfaddan, hanti fiicanna ka sameeyay, waxaana ka mid ah macallimow. xirfaddan forex ama sarifka lacagaha qalaad waxaad baran kartaa iyada oo haba yaraatee wax qarash ah kaaga bixin joogana gurigaaga ama goobtaada shaqada. xirfadda shanaad waa xirfadda loo yaqaano web development ama horumarinta website-yada. tirada dhammaan website-yada caalamka waxaa lagu qiyaasaa tiro gaaraysa 2 bilyan. xirfaddan waa mid la xiriirta sameynta, naqshadeynta, horumarinta website-yada, waana xirfad aad loogu baahan yahay si fududna aad ku baran karto adigoo jooga gurigaaga, adigoo aysan kaaga bixin taano qarash ah. xirfadda lixaad ee ugu dambaysa ee doonaya inaan kula wadaago waa xirfadda loo yaqaan language skills ama luqadaha. luqaddu waa xirfad aad u muhiim ah, waxayna fure u tahay barashada xirfadihii aan soo xusnay, gaar ahaan luqadda Carabiga iyo Ingiriiska. dhammaan xirfadaha aan ka soo hadalnay waxaad ku baran kartaa gurigaaga ama goobtaada shaqada, waxaadna ku baran kartaa qaab online ah, iyagoo free ah ama iyagoo lacag ah labadaba. marka laga reebo xirfadda fagaara ka hadalka oo u baahan baraatiko badan iyo inaad bulsho badan ka hor hadasho marar badan. haddii aad soo gaartay halkan, waxay la mid tahay inaad dhammaysato muuqaalkan, aad fahantayna 6 xirfad ee aan ka hadalnay. waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, subscribe-na aad saarto channelka haddii aad ku cusub tahay, isla markaana aad sii gudbiso oo aad la wadaagto asxaabtaada.